صلى الإله صلى على الذي تجلى نبي وحي صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة بديا صليغا أدغو صلينيسان maalinka jimcada iyo habeenka jimcada marka walaalayaal aan badino salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam maalinka jimcada iyo waliba habeenka jimcada ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku leeyahay inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina aamanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima ilaahay iyo malaa'iktiisa waxay ku salinayaan nabiga sallallahu alayhi wasallam kuwa iimaanka laga helayo kusaliya nabiga sidaas darteed walaalayaal waxaana looga baahan yahay in aan nabiga ku salino gaar ahaan habeenka jimcada iyo waliba maalinka jimcada saliga uu ilaahay ku salinayo nabiga wuxuu noqonayaa amaan saliga adoomada Allah ay ku salinayaan nabigana wuxuu noqonayaa duco ay nabiga u duceynayaan nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi biha 10 qafkii markaasi aniga hal mar igu saliyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ku salinayo 10 jeer sidaas darteed ku sali nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ha noqonin baqiil al-baqiilu man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam baqiilku waa midka markaasi markii lagu agsheego aanan igu salinin sidoo kale nabiga wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam in markaasi loo soo bandhigayo saliga saxaabada qaar kamid ah ayaa waxay yiraahdeen sidee markaasi lagu soo bandhigayaa adigoo markaasi lafahaaga iyo jirkaaga u baaba'ay nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam inna allaha harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu ka xarimay dhulka inay cunto markaasi jirka anbiyada اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد